maxaad ka taqaanaa xeerarka da'da 18 sano, 40 sano iyo 60 sano? Waa xeerar uu qabo Dr. Daniel Amin oo ah qabiir dhanka caafimaadka maskaxda ah. Waxa uu leeyahay qof kastaahi waxa uu maraa 3 marxaladood oo ku salaysan hadba da'da uu jiro. Marka koowaad, qofku marka uu jiro 18 sano, waxa ugu badan ee uu qofku inta badan ku mashquulo waa waxa ay dadka kale isagu ka aaminsan yihiin. Waxa uu ka walwalaa sida ay dadka kale u arkaan muuqaalkiisa, labiskiisa, cuntada uu kariyey iyo sida uu u hadlay iyo wixii la mid ah. 2. Marka uu qofku jiro 40 sano, qofku waxa uu u gudbayaa marxalad uusan dan ka lahayn waxa ay dadka kale isaga ka aaminsan yihiin. 3. Marka uu qofku jiro 60 sano, waxa qofka u cadaanaysa in wixii uu ka fakari jiray oo dhanba aysan ahayn wax jira. Waxa uu ogaanayaa inaysan jirin cid isaga ku mashquulsanayd oo isaga kaliya uu iska dhaadhiciyay, dadkuna ay danahooda haystaan. fadlan haddii aad muuqaalkan ka hesho like dheh, sidoo kalena asxaabtaada kale u sheer garay ama kuwa bilinkiga taabo. Mahadsanid.